ninkan cadaanka ah oo ku hadlaya af Soomaaliga iyo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa dood weyn ku yeeshay fagaaraha Islii ee caasimadda Nairobi ee dalka Kenya. ninkan waa wadaad Kirishtaan ah waxa uu ku hadlayaa af Soomaali si uu diinta Kirishtaanka ah u baro dadka Soomaalida. haddaba maxaa helay? dhalinyaro Soomaali ah oo aad u yaqaan diintooda isuban ee Islaamka isla markaana fahamsan kitaabka Bible-ka oo ay aaminsan yihiin gaaladu ayaa dood culus kala hortagay ninkan cadaanka ah. waxyaabaha ku qasbay in uu iska quusto waxa kamid ah mar la weydiiyay ma jirtaa kitaabka Bible-ka meel uu ku sheegay in Ciise uu yahay Ilaah, isaga oo isku dayaya in uu ka jawaabo isla markaana garwaaqsan sida Bible-ku ay u fahamsan yihiin dhalinyaradan Soomaalida ah ayaa waxa uu leeyahay ma jirta aayad ama nuqul sheegaya oo uu Ciise ku leeyahay waxaan ahay Ilaah. markaasi ayay takbiir qabsadeen raggii muslimiinta ahaa ee ku sugnaa fagaarahan. ma jiro aayad oo ku jira Bible-kii oo ereyga exactly oo ku yidhaahdo waxaan ahay Ciise uu yidhi waxaan ahay Ilaah i abud. taasi ayaa dooda oo dhan soo gabagabaysay maadaama uu qiray in uusan Ciise ahayn Alle, halka markii hore uu ku doodayay in Ciise uu yahay Ilaah. waxyaabaha cajiibka ah ee dhalinyaradan lagu amaanay waxaa ka mid ah in ay dood macno leh la yeesheen ninkan af Soomaaliga u soo bartay si uu Soomaalida Kirishtaanka ugu faafiyo, sida ay u fahamsiiyeen in uu Ciise yahay adoonkii Alle iyo nebi ka mid ah ambiyadii oo ay aaminsan yihiin laakiin aysan u aqoonsaneen in uu yahay Alle. anagana sidaan u fahansanno ayaan ku sheegaynaa xaqana qof walba uu arkaya saxma marka hadduu Ciise Qur'aanka ku yaalo uu ahayn midka Bible-ka ku yaalo bar midka Bible-ka noo sheeg anagana aan ku sheegno midka Qur'aanka ku yaalo aan eegno in isku meel aan wax u wadno iyo inaan kala wadno. marka Qur'aankeena uu noo sheegay Ciise waan fahansannahay waa rasuul waa nabi Alle soo diray. inkasta oo dood maangal ah ay ahayd wixii ka dhacay fagaaraha Islii, haddana waa wax aan habbooneen in la furo doodo diimaha ku saabsan oo Soomaalida dhexdeeda ah, sababtoo ah dadku waa Soomaalida ee waxay aaminsan yihiin diinta Islaamka oo qura. sidaa darteed ma jirto sabab loo dhiirigeliyo doodahan oo af Soomaali ah haddaynan af Ingiriisi loo bedeleen si Kenyaatiga iyo Afrikada kale loogu daw sheego. bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag muuqaalkana laag saar siina sheer gare